duqayagaasi marka uu golayaasha ka hadlayo iyo marka uu sheekaynayo wuxuu oran jiray waxa halays u ahayd waxaana soo kiciyay dareen tamacnama keenin dareen shacab baana keenay ayuu oran jiray marka hadalladii wanaagsaneed iyo lagtiradii uu akhriyi jiray ee uu golayaasha iyo saxaafadda u soo bandhigi jiray ayaabanu sinay ninkan idinku mudnaa laakiin waxaan bulshada u sheegaynaa inuu noqday ninkii ugu liitay golaha dareenkan maanta aad soo bandhigtay ma jiraan xildhibaano kula qaba adiga oo iyaguna dhawaan warbaahinta iman doona insha Allah ta'ala 7 xildhibaan ama 8 xildhibaan bay la qaba dareenka waan hormuud u ahay geel duqbaa loo tumaa iyagana waa wareysan doontaan xildhibaan maxamuud shimbir oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Burco oo goordhaweysii jiraayad ku qabtay hoteelka Daale ee magaalada Burco ayaa eedeymo kulul soo jeediyay duqa magaalada Burco waxaana xildhibaanku wadaha ka qaaday khilaaf uu sheegay inuu dhaxeeyo maayirka iyo qaar kamid ah golaha deegaanka degmada Burco xildhibaanka ayaa guud ahaanba cabashooyinka bulshadu ay u jeedinayso golaha deegaanka degmada Burco gaar uga dhigay maayirka magaalada Burco waa sida uu hadalka u dhigay inkastoo ay jiraan cabashooyin baahsan oo ka imanaya bulshada rayidka ah cabashooyinkaas oo ku saabsan golaha yagan deegaanka ee degmada Burco cabashooyinka ragga laga cabanayo ee golaha laga cabanayo ayaan ka mid ahay waliba waxaan ahay mas'uulka ugu weyn xagga da'da dadkuna mar hadduu golo wada joogo kulley isla shaqayntu inay wanaagsanaataa wanaagsan golaha iyaga deegaanka ee degmada Burco sida aad wada ogtihiin waxaanu nimi bishii shanaad ee 22 hadda waxaanu maraynaa muddo laba sano wax yar ka dhiman yihiin cabashada bulshada nagaga imanaysa ma aha mid golaha deegaanku wada leeyahay waa mid u gaara duqa degmada oo aanu ku imaamadnay oo aanu saaray haddaanu ahayn asxaabtii waliba ka soo baxday ee laga doortay isbahaysiga mucaaradka umaanaan dooran dee aqoon badan baanu isugu kaynay dadku markaa isu yimaadeen golahu cusub yahay aqoon badan baa isugu dhiman dad si cusub baanu ahayn had iyo jeer saxaafadduna waxbay boonboonisaa duqayagaasi marka uu golayaasha ka hadlayo iyo marka uu sheekaynayo wuxuu oran jiray waxa halays u ahayd waxaana soo kiciyay dareen tamacnama keenin dareen shacab baana keenay ayuu oran jiray marka hadalladii wanaagsaneed iyo lagtiradii uu akhriyi jiray ee uu golayaasha iyo saxaafadda u soo bandhigi jiray ayaabanu sinay ninkan idinku mudnaa laakiin waxaan bulshada u sheegaynaa inuu noqday ninkii ugu liitay golaha master hero duqa degmadu waxaananu rajaynaynaa oo bulshada u sheegaynaa waxna waa gole oo qorshayaal sanadeedkay soo saaraan waxna waa fulinta ayaa hawl wadista leh 7 kal fadhi baanu fadhiisannay oo aanu idiin soo shaacinay oo aanu baajijkayga idiin soo dhignay qorshahii 7 kal fadhi aanu qabanaynay waxba kama fulin qorshe kasta oo aanu soo bandhigno duqu ma fuliyo caqabadana koobaad ee maanta ilaa xalay baraha bulshada waa ogeydeeno wararba la wareejinayay muuqaalkayga iyo codkayga iyo sawirkayga ku jiray waxa qoraalkaas falcelinta ugu badan ahayd maxaa golihiina ugu dhamaysan weydeen ilaa golo deegaan oo la doortay baa tahay shacabka iyo bulshada isu maqashiinaysa taa waxa aan u sheegayaa bulshada reer Burco kal fadhiga iyagii 8aad waxa uu bilaabmay 15 bishan koowaad ee sanadkan 23 kal fadhigii 2 maalmood markii uu soconayay waa la joojiyay wuu diiday duqii degmadu inuu soo fadhiisto golihii xalaytana wax kan ogaanay inuu Hargeysa isaga baxay ninkii nala ballansanaa inaanu kal fadhigii ka hadalno sanad baa dhamaaday maadaama sanad dhamaadayna isbarbardhigii dakhliga iyo kharashka iyo isla xisaabtankii ayaanu doonaynay inaanu bulshadana la wadaagno golaha iyaguna ku xisaabtano waanu ku kari weyn الآن ما أنتوا أفريلا تنكي بيشة تهاي إلا يشني طبعا كي بيشة مدة طبعا كعشية ما كوي طبعا كعشاء كالفردي وتاجي هاي وانو كور وريجي إن أنا قلها يجي كوا هذا الله ويسورة جل ويدي وحنا نرجعني إن أنا واحد بعنا ده أنا برا ساب كجبل كدعوة وجود بينه سي كالفردي جوا قبصهم مركا أنت أنا دلوا وداجية وأنت
maxamed mataan gabalaax wararka telefishinka sahan magaalada burco.